السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاشين أمومنا إيو مركلة عاوه دو الله سبحانه وتعالى وكرها للنقضة وحان إذن لو ذاقيا علم بارتان ساينس علمي باريتان oo lagu sameeyay cuntada oo walaashin umumuna ay caawa ka qayb qaadanayso oo aan rabo in aan idin tuso participation and participate gareynayay my university class aniga oo sameynaya cilmi baaritaan lagu sameynayay wheat grass ka lagu sameynayay oo aan ka qayb qaatay ayaan rabaa inaan qaybta hore aan idin la wadaago oo caawa aan idin geeyo ma sha Allah tabarakallah caawa waxaad ila mataqaanaa tagaysaan hadii Ilaahay subhanahu وتعالى وكرر للنقطة علم باريتان كاس iyo qaabkii aan u sameynay iyo waliba mataqaana waxyaabihi ka soo baxay ma sha Allah tabarakallah qaybta labaad walaalayaal waxaan rabaa dhamaantiin walaalahay Soomaaliyeed in aan idin la wadaago maxaa la yiraahdaa ma sha Allah tabarakallah caafimaadka iyo cuntada siyaabaha ay isku xiran tahay wax alaali iyo waxa aan idin ka faa'iideyn karo aan idin ka faa'iideeyo waxaan idin ka faa'iideysan karana aan idin ka faa'iideysto ma sha Allah tabarakallah mar walba waxaan ahay walaashiin oo Soomaaliyeed idinkuna waxaad tihiin walaalahay Soomaaliyeed ma sha Allah tabarakallah walaalaha Soomaaliyeed oo dhan ruux walba oo cilmi mataqaana meel ka helo waxa uu wax u yahay in uu u faa'iideeyo ama uu u taagan yahay walaalihiis ma sha Allah tabarakallah anigana waxaan jeclahay in aan mataqaana aan idin la wadaago waxyaabaha caafimaadka aan ka barto jaamacadda waliba qaybaha aan idin la wadaagi karo oo aan idin soo gudbin karo sida qaabka foodka oo kale ama cuntooyinka oo kaleeto maxaa cuntada u fiican diabetiga cuntada u fiican arthritis-ka cuntadeeba u fiican dhiig-yarida cuntadeeba u fiican qofka markay vitamin D-ga ku yar tahay iyo waxyaabaha noocaas oo dhan ba biidnillaahi baari waxaa ka heli doontaan janaalkayga la magac baxay janaalkiina la magac baxay ma sha Allah tabarakallah maam muna caafimaad iyo qurux la magac baxay ayaad mataqaanaa walaalahay aad ka heli doontaan biidnillaahi baari aad waxa idin ku soo dhaweynayaa aniga iyo idinkaba inaan uga faa'iideysano Ilaahay subhanahu wa ta'ala aan ugu xamdino nimcooyinka uu Ilaahay subhanahu wa ta'ala cuntooyinka uu galiyay iyo sida maanta ay ugu mashquulsan yihiin dhaqaatiirta adduunka oo dhan meel alaali iyo meeshay doonaan baha ka joogaane waxaan idin la wadaagayaa walaalayaal in uu adduunka maanta uu ka socdo kacaan hor leh ama mataqaana oo loo yaqaano food is medicine in mataqaana cuntada ay ka daaweysan tahay food maxaa la yiraahdaa inay cuntadu ay ka daaweysan tahay daawada ayaan rabaa mataqaana inaan idin la wadaago oo aniga iyo idinkaba aan niyada si fiican mataqaana aan ugu furno oo aan ku hayno oo laga yaabo wax yar oo mataqaana cuntooyinka qaabka isu raacaan ruuxa haduu fahmo in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu uga badbaadiyo rabbi baahe wax badbaadiye inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ruuxa uga badbaadiyo daawooyin badan oo chemical ah oo dhixgali lahaa ana mar walba ayidaaye in dhaqaatiirtiina u tagtaan la tashataan daawooyinka iyo waxyaabaha ay idin qorayaan intaba mataqaana ma sha Allah tabarakallah qaadataan oo la socotaan haddana qaybta aan idinka caawini karo maadaama dad is arko ama clinic iskugu imaanaya aanan ahayn qaybta aan idinka caawini karo ayaa waxa ay tahay cuntooyinka iyo meelaha ay caafimaadka ay kaga aadan yihiin iyo siyaabaha ay caafimaadka ay ugu yihiin important siyaabaha ay ugu yihiin mar walbana walaalayaal waxaan la jeclahay waxaan idin la jeclahay waxa aan nafsadeyda la jeclahay ayaan idin la jeclahay haddaba marka aan ku soo noqdo cilmi baaritaankii aan ku sameynay ma sha Allah tabarakallah qaybo fara badan oo cuntooyinka kamid ah ayaa waxa kamid ahaa maxaa la yiraahdaa qamadiga cawska qamadiga ma sha Allah tabarakallah walaalo badan baa laga yaabaa inay isweydiiyaan oo umunay cawska qamadiga xageenu ku helaa cawska qamadiga ma sha Allah tabarakallah ma sha Allah tabarakallah waxaa la yiraahdaa wheat grass marka ma sha Allah tabarakallah walaalaha North America Europe kulay wadankayaga qamadi inuu ka baxo waan jeclahay laakiin idinka iisoo sheegi doonto walaalo badan oo mataqaana aniga iga experiencesan biidnillaahi baari waxyaabaha wadankayaga ka baxa biidnillah idinka sugaya inaa mataqaana ila wadaagtaan iyo waxyaabaha aan wadankayaga aan laga heli karin oo qaarkood aan kala cadayn ma sha Allah tabarakallah
haddaba faa'iidooyinka uu leeyahay iyo mataqaanaa muxuu faa'iido u yahay iyo sidee baa loo isticmaalaa ayaan rabaa mataqaanaa qaybta dambe ee maxaa la yidhahdaa videogan in aan idinka maxaa la dhahaa idinkula wadaago allahuma salli calaa maxamed haddaba wuxuu ka mid yahay green leafskaas waxay aad iyo aad u taraan oo ay ka bixiyaan jirka walaalayaalow sunta ayay ka bixiyaan detoxinka ayay ka bixiyaan waxay ka bixiyaan waxyaabaha mataqaanaa ee qofka jirkiisa soo galaya ayay mataqaanaa ka hortagaan waxay nadiifiyaan dhiigga qofka ayay nadiifiyaan waxayna transportation maasha allah tabaaraka allah kelmadda transportation inta badan marka aan maqalno dee bas la raaca iyo maasha allah tabaaraka allah ayaa mataqaanaa maskaxdeena kusoo dhacaysa laakiin dhiiggayaga laftirkiisa oxygeenta ayaa waxay u tahay dhiigga waxyaabaha qaado ah oo mataqaanaa marka waxay ku saacidinaysaa in mataqaanaa dhiiggaagu uu kala socdo meelihii uu gaari lahaa uu kala gaaro isla mar ahaantaasna wax allaale iyo wixii toxin ah ama wixii sun ah ama wixii mataqaanaa xanuun ah ee jirkaaga ku soo jiray in uu la dagaalamo oo siir uu jirkaaga uga soo saaro allahuma salli calaa maxamed cajaladaha noogu xigo walaalaha raba inay arrintan igala qayb qaataan maasha allah tabaaraka allah waxaan bilaawi doonaa haddii ilaahay subxaanahu watacaala uu ka raali noqdo si aan aniga iyo adigaba aan ooga faa'iidaysano 10 smoothie oo kala duwan oo 10kaas smoothie-ba waxay noo samayn doonaan maadooyinka loo yaqaano detoxinka loo yaqaano ee jirka lagu safaynayo ee dhiigga lagu safaynayo biidnillaahi baari marka waxaan idinla wadaagi doonaa smoothie walba ama cabitaan walba qaabkii loo samayn lahaa iyo allahuma salli calaa maxamed iyo mataqaanaa ee waxyaabihii aan ka heli lahayn ayaan mataqaanaa aan idinla wadaagi doonaa following cajaladaha soo socda biidnillaahi baari walaalahayga qiimaha iyo qaayaha badan ee Soomaaliyeedow waxaan rabaa caawo in aan programkan aan idinla wadaagayo ee ah food is a medicine inaan mataqaanaa kulligeen aan u wada istaagno oo niyadeena meel sare aan kaga qorano why ay important u tahay maxay waxyaabaha ay importantiga u tahay ayaa waxay tahay in mataqaanaa xanuunka daaweyntiisa waxaa ka faa'iido badan ka hortagiisa ayaa ka faa'iido badan maasha allah tabaaraka allah sida iiga wada cilmi badan tihiin ama u wada og tihiinna daawooyinka la isku daaweeyo xanuun walbaba ha ahaatee xanuunkay doonaysaba ha ahaatee daawo walba waxa ay leedahay side effect ayay leedahay oo dhinac xun waxaa laga yaabaa oo daawadaas dhinacna inay wax ka daaweyso dhinacna iyada laftirkeeda inay waxyaabo badan ay la timaado markii ay dhakhaatiirtii iyo culimadii sayniska markay aad u fiiriyeen ayaa marka waxaa soo baxay programkan food is a medicine in marka horeeta mataqaanaa kow inay qofka qodobka koowaad in ay ka hortaga xanuunka uu ka faa'iido badan yahay daaweyntiisa qodobka labaad oo waxyaabo fara badan oo qofka uu daawo u qaadan lahaa maadaama daawooyin fara badan ay ka imaadaan dhinaca cuntada laga soo dhex saaro waxyaabaha qofka uu u qaadan lahaa kaniini ahaan uu u qaadan lahaa in qofkii hadiiba jismigiisa lugihiisa ay dhaqaaqayaan oo uu socdo iyadoo cunto ahna in uu heli karo oo uu isku wadi karo si marka dambeeto cuntada kaliya uu isticmaalo oo daawada side effectigeedii mataqaanaa ay ooga harto اللهم صل على محمد وولاشين أمومنا ودمانتين إذن لا ولا لهي ومتقنا هري سبسكرايبر كيجو سو دواد مرة بعد يمر صدحات أد بإذن سو دوين يا أدي أدنى أمهات سنتين ولا هدي عاد ولا لها كعصب جنالك كعصب ما شاء الله تبارك الله إذن كانوا إذن سو دوينيا جنبالك بإذن الله باري تابصة سي عجل كي عصب كوسو قلبا أنسوها جايبة وكوسو قلب سؤال على سؤال قبتد بإذن الله باري كومنت تيجا هوس كسوقر دي إلهي سبحانه وتعالى وقرأ للنقضة ولا الكاغا كلا أباهن جنال كان كهضليا عافماتك إيو قروحدا إيو سيدي الاسكوكو داوين لها عنتوينك الاسكوكو داوين لها والد بدن ولا لبدن أو أباهن إياجرة ولا أدقنا ننكاغا صدقة كبحصة بإذن الله باري ما شاء الله تبارك الله قارسي ولا لها صوماليات انت قارسين كرتو وولاشين أمومنا oo dhammaantiin idin leh
إلهي سبحانه وتعالى عافمات إي عبادة صوبا ها إذن كو إرساقو ميل ألالي إي ميش أجوكتان ودن كيغان إلهي سبحانه وتعالى نبض هنوغا ديغو إلهي نوحان كبرينا إنو كو شاكرين أدمانتين ونغا ديغو انت حنوصلنا الله سبحانه وتعالى هنو عافيو والدين تحنوصن ولا لها حنوصن إلهي وحا إذن ويدينا يا إنو إلهي سبحانه وتعالى وحنونك إذن هاي وإذن كقاضو إلهي سبحانه وتعالى نداوذ ميل فضود وإذن صارو اللهم صل على محمد دمانتين وحان إذن كتغيا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.